caliyow nin gooriya ayaan gaadan baanahaye gasiinka iyo caanuhuba way garab marayaane jidhkaygii guduudnaa walee gibil madoobaay tixdani waxay ka mid tahay gabay ku lifaaqan sheekada aan idiin akhrin doono haddii ee baydmo sheekadan ayaa waxay dhacday horraantii qarnigii 19aad waxayna ka dhacday gobollada waqooyi waxayna dhex martay nin la oran jiray Faarax Ismaaciil oo ka soo jeeda qabiilka la yiraahdo Isaaqa gaar ahaan Habar Yoonis iyo nin la oran jiray Macallin Axmed oo Maxamed oo Sidiiq oo ka soo jeeda qabiilka la yiraahdo reer Qudub sheekadan ayaa mar uu ka sheegay xaflad qoraaga caanka Axmed Faarax Cali Idaaja ayuu qabiilka ninka Isaaq wuxuu ku sheegay inuu yahay nin ogaadeena ma aha ninkaas wuxuu ahaa nin Isaaq ayuu ahaa oo Habar Yoonis oo reer Caynaansha waxaa kaloo Axmed Faarax uu yiri wax isku qabteen waxay ujuuro Quraan oo ninka ayaa yiri Macallin oo wiilkaygu markuu Quraanka dhameeyo gabadh aan dhalay baan ku siinaya arintuna saas ma ahayn ninku uu xanuunsanaa waxa uu yiri Macallin hadaad rabbi toog ii sameey hadaan bogsado waan ka farxinaya waa hagaag sheekadan oo aan ugu magac daray tafadhiig aan ku baala rogay magaca tafadhiiga waxaan ugu magac daray Soomaalidu waxay tafadhiig u bixiyaan gabadha dhalata habeenka dayixu uu hoydo godkiisa 18aad ee la yiraahdo Leebcasta gabadhaas oo noqoto mid bilic waalan ragna isku arko lagana yaabo inay dagaal sokeeye sababto ayaa loo bixiyaa ayaa lagu naanaysaa tafadhiig hadaba macallinkii markii uu ninkii rabbi toogmada u bilaabay ayuu ninkiina ku yiri Faarax Ismaaciil baa la oran jiray Macallin oo hadaan bogsado waan ka farxin doonaa macallinkiina rabbi toogmada ayuu bilaabay gaar ahaan maalinta Khamiista iyo Isniinta ayuu Quraan joogtaa iyo mudaawaad iyo dhir asaga si gaar ah u xanaaneyn jiray ninkii uu caafimaaday muddo gaaban kadib ayay gabadhiina soo kortay markii gabadhii soo kortay ayaa durba gabadhii waxa batay hadal haynteeda suuqa iyo bilicdeeda inay dadku ka sheekeeyaan macallinkii markuu arkay inay nuxnuxdeedu suuqa ku badatay iyo dadka dhagahooda ayuu wuxuu bilaabay inuu gabadha yaradkeedii si hormariyo gabadha yaradkeedii ayuu si hormarisa u sii bilaabay waa kii inuu ogeyn oo gabdhaheenu waxay doonanaan jireen sanad iyo ka badanba macallinkii wuxuu bixiyay xilli markaas uu durba bilaabay tira ariya 20 geela qori maadin yara 100 rubiyadood iyo geenye uu lahaan jiray oo la oran jiray xasaw macallinko intaas ka maqan tahay ayaa ninkii Faarax Ismaaciil ahaa ee gabadha dhalay waxa uu suuqa ka helay gabadhiisu inay aad dalabaadkeedu u badan yihiin dadna gabadhii iyo macallinkii wuxuu go'aan ku gaaray inuu isijiyo gabadhii wuxuu ku yiri naarad baxso oo iska tag deegaanka gabadhii ayaa baxdo waxay aaday gabadh walaasheeda oo deegaan kale lagu qabo gaar ahaan qabiilka dhulbahantaha uu qabo ee reer Hagara gabadhii ayaa muddo gaabanba waxay soo barteen wiilal wayna soo noqoto aabaheeda ay ku soo laabatay waxayna tiri aabow rag baan la soo heshiiyay waliba geel badan baan kula soo heshiiyay hada ragaas maaratay la xidid gabadhii markay soo noqotay macallinkii aad buu farxay wuxuu yiri Ilaahay baa ku soo nabad celiyay dadana inay macallinka saaxiibo ahaayeen oo Cali Nuur la oran jiray ayuu yiri Caliyow hadii gabadha Ilaahay keenay hadii gabadhay arintayda maanta geedka markay rag isugu yimaadaan la soo hadal qaado ragii baa geedkii isugu yimid gabadha aabaheed baa kamid ah Faarax Ismaaciil Cali Nuur baa kamid ah macallinkii baa kamid ah dadna Cali Nuur ay macallinka saaxiibo si gaar ah u haayeen hadalka lama gabanin wuxuu ku yiri Faaraxow gabadhii hadii Ilaahay soo nabad celiyay guurgalna ay gaadhay macallinku xoolo wuxuu ku heli karina ku siiyay wixii Ilaahay soo geliyana aad wada yeelan doontaan macallinka gabadha u dhis Faarax waa nin u shiisu meel uga jaran tahay hadalka kama labaynine wuxuu yiri anu macallinka wax gabadha uma hayo halkaas ayuu macallinka wax ku fahmay geedka ayaa lagu soo kala dareeray markii geedkii laga soo kacayna ninkii la oran jiray Cali Nuur ayaa macallinkii hore garabka u sii qabtay guri ay gabadhina Cali leedahay ayay casar dheerihii hoos qoodaalkiisa fadhiisteen halka ay ku sheekaysteen qoraxdii baa dhacday meesha maqribka ku tukadeen Cali ayaa soo baxay wuxuu u doonay xaafadda ayuu casho ugu doonay Cali ayaa cashadii fijaan raashina iyo furqor caana ah irida kala soo galay markii cishaayiga laga baxay weeye irida markuu kala soo galay ayuu yiri Macallinow rag ka dhaliyay mooyee waxaan qabsanin lama arag balse adiga xaajadaadu ma sii ridna oo xiliyo xoolo midin baad heliye cashe markaas ayuu Macallin Axmed gabaygan bilaabay Caliyow nin gooriya ayaan gaadan baanahaye gasiinka iyo caanuhuba way garab marayaane jidhkaygii guduudnaa walee gibil madoobaay sidii gaan wardheer oo wadaan lagu garaacayo
ama goodir dhalay oo ilmaha gocasha eegaysa ama roob ugu soo hooray oo gala jabaynaya ama guuta maal badan hesho daba gobaynaysa ama aar intuu guruncu cunay wax iska guulaya gurxanka iyo feedhaha waxa iga gawaamaya engama kaga qostiyo hurdada lagu garaardayo galmidhabadka waxa igu wacan geedadkan qabo intaan idhi ayaan cashadii laacay buu yiri mar Caynoosh ka sheekeynay Cali Nurra asagoon kalmad celinin ayuu ridda ka baxay talawaagu muxuu ku bariyay qaybteena xigta isla Maxamed Sheekh iyo sheekadii tafadhiig aad baan idin salaam